بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجبروت، والحمد لله الكبير المتعال، الحمد لله ذي الجلال والملكوت والعظمة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلقة maanta waxaynu kaga hadlaynaa in wax kasta oo Ilaahay abuuray ay Ilaahay u sujuudaan, inay Ilaahay ka cabsadaan, inay Ilaahay u tasbiixsadaan. in badan oo khalaa'iqa Ilaahay ka midihina inay Ilaahay u tukadaan ayaynu kaga hadlaynaa xalaqadan maanta. wuxuu Alle yidhi subxaanahu wa tacaala: tusabbixu lahu الsamaawaatu الsabcu wاlأrdu waman fiihinna wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum. wuxuu Alle yidhi ma jiro wax uu Alla abuuray oo dhulka iyo samooyinka dhexdooda ama korkooda ama gudahooda ku uuman oo aan Ilaahay u tasbiixsanin ma jiraan, balse idinku siday u tasbiixsadaan aqoon uma lihidin. wuxuu kaloo Alle yidhi subxaanahu wa tacaala: alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati wاlardi wاطayru saafaatin kullun qad calima salaatuhu wa tasbiixuhu wallahu caliimun bima yafcaluun. Ilaahay wax u tasbiixsada waxa dhulka iyo samooyinka ku uuman, kuwa duula, kuwa aan duulin, kuwa beerka ku socda, kuwa cagahooda ku socda, mid aanu tasbiixsan ma jiro. kullun qad calima salaatahu wa tasbiixuhu. mid waliba siduu Ilaahay ugu tukado ee uu caabudo ugu tasbiixsado wuu yaqaanaa buu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala. macnihii waxa weeye in badan oo khalaa'iqa Ilaahay ka midihi way u tukadaan Ilaahay waana u tasbiixsadaan. sidoo kale wuxuu Alle yidhi subxaanahu wa tacaala: alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi waالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلى آخر الآية. مياند أركين بوليها إلهي سبحانه وتعالى إني السجودان إلهي وح الله لو حسموينك يدولك كؤمن عاد له ضيح له حدق له بور له در له xayawaan nool ha yaraado ha soo weynaade, bad ha ku noolaado, berri ha ku noolaado, hawada ha ku noolaado, inay mid waliba Ilaahay u sujuudaan miyaanad arkaynin buu leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala. intaa uu Alle tiriyeyna waxa weeye uun waa mithaal weeye, bal macnihii waxay tahay wax allaala wuxuu abuuray Ilaahay oo dhammi way u sujuudaan, innaguse siday ugu sujuudaan garan mayno. sidoo kale wuxuu Alle yidhi: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وحلالا وحسموينك يدولك كؤمن أوردمي ويسجودان إلهي إيقو وكسي إيقو وقصدي إن إلهي وسجودان. أما إيضا لغو خصبي وحتى كوي لغو خصبي قال ذي كم دعيد هركودي هدي يجي سجودي وايين harkoodu Ilaahay u sujuudo miyaanad arkayn buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. sida aynu sheegnay marka way u tasbiixsadaan, way u sujuudaan khalaa'iqa oo dhami Ilaahay way ka cabsadaan kulli intay ka tira la-egyihiin. siduu Alle yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo malaa'igta inoo sheegaya: walilaahi yasjudu maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi min daabbatin wاlmalaa'ikatu wahum laa yastakbiruun. way u wada sujuudaan waxa dhulka iyo samooyinka ku nool ee noole ah. daabba wixii noole ah
والملائكة خاصة ملائكته كما نكبريان إن إلهي السجودان أو عابدان أو أتكدان ملائكته خاصة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون خاصة ملائكة إلهي وتلمام يوحي إلهي بي سدب أو قعب صدان إله ككرية أي سدب أو قعب صدان وحيو أمرنا ويفلان بيد الله سبحانه وتعالى ويا هدبا خلائقي أو دمي قراني إني إلهي كعب صدان إني إلهي أتكدان إني إلهي السجودان قراني إني إلهي التصبيح صدان بني آدمكو وحو الله كيالي وح الله لو وحو خلائق أبو ري أو دن متك أو شرفت بدن هي متك أو كرامة بدن أي إلهي كيالي بني آدمك إلهي باسد أي نوشيك بلسه بني آدمك أو كرامة بدنا إلهي أو شرفت أو وينسي iyada oo wax allaala wixii uu ilaahay abuuray oo dhan buur iyo bad iyo berri iyo samo wixii ku uuman oo dhan ay ilaahay caabudayaan oo u tasbiixsanayaan oo ka cabsanayaan ayaa haddana khalaa'iqii ilaahay abuuray midkii uu ka sii fadilay oo dhan qaar ka midihi ilaahay aanay weligood sujuudin balse ay ilaahay ka kufriyeen إلهي إنه شيء إنه بني آدم ككرامة إيه شرفت تيو وكر ريسيسي وحليه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقة ولقد كرمنا حقيقة بني آدم وانو كرامين oo waxaanu awood siinay inay dhulka ku safraan ama xoola ama daabad ha fuulaan maxay ahayd faras iyo wax lamida ama baabuur iyo tareen iyo wax lamida ama hawada ha ku duulaan oo diyaarada ha ku fuulaan ama badda ha ku maraan maraakiib iyo wax lamida iyo maxay ahayd kuwa quusa dhulka badda hoosteeda submariinku ka mid yahay waxaanu ka risiqnay buu alla leeyahay bani aadamka من الطيبات حيوان كي كله أما وحي كله وحي عنيان وحي أودتك كتغو انتو ذا بضن أما عن طيبات هين أي قار عنيان بل سإلهي سبحانه وتعالى وحو كردقي بني آدم كي جيد ككبحي كي سلرك أها كي بابايق أها كي لينتا أها كي هلب كلها يكرلون mid walba iyo digaag iyo mid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku risqay iyaga balse libaaxaasu maanta inuu xayawaan kale un qabsado mooye weligaaba babaay iyo maxay ahayd khudrad iyo wax macmacaan hordhig taaban maayo ilaahay sidaas uu karaameeyey warazaqnaahum min alطayibaat buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wafadalnaahum calaa kathiirin miman khalaqnaa tafdiila waxaanu ka fadilnay oo kale buu yidhi kuwaanu fadilnay ayaanu ka sii fadilnay bani aadamka waa kuwee kuwa ilaahay fadilay maalan waa malaa'igtii ilaahay wuxuu leeyahay bani aadamkii qaarkood ayaanu malaa'igtii ka sii fadilnay waa kuwee kuwaas waa kii tawxiidka ilaahay ku toosa cibaadada ilaahay xaqa cibaadatihi ka soo baxa wuxuu ilaahay ka xarimay ka fogaada iyo wixii makruuhahba kaasu waxa weeye malaa'igta uu ka koreeya sidaas weeye sida ay maxay ahayd caqiidada ahlu sunna wal jamaa waxay qabtaa qofka saalixa ah ee saynu soo sharaxnay ambiyadii iyo rusushii iyo qofkii saalixa ah sida aynu u soo sharaxnay xaq ilaahay cibaadada xaqa ku caabuda tawxiidkiisu dhan yahay xaraan ka fogaada waxa uu ilaahay amrayna la yimaada inuu ka fadli badan yahay malaa'igta Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu wa ardaah ayaa wuxuu yiri rasuulka alla sallallahu alayhi wa sallam ayaa yiri innal malaa'ikata qalat ya rabbi ja'alta bani aadama ya'kuluna fi ad-dunya wa yashrabuna wa yatamatta'un
فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما waxaa laga soo wariyay inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam malaa'igta ilaahay ku tiri ilaahayow bani aadam waadigan adduunyadii mulkisiiyey oo way cunayaan oo way cabayaan oo way ku raaxaysanayaan ee annagana aakhirada noo daayo narsi oo hanaga siinin iyaga tan ilaahay wuxuu yiri wa'izzati wa jalali la aj'alu saliha dhurriyyata man khalaqtu bi yaday cizigayga iyo jalaalkaygan ku dhaartay kala mid dhigi maayo midka aan mid kala mid dhigi maayo dhurriyada ka dhalatay midkii aan gacantayda ku abuuray oo nabi aadam alayhi salaam kala mid dhigi maayo khalaa'iqi kale ee aan yiri aan ku abuuray kun ee dabeetana ahaaday macnihi uu ka diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala waayo ani yar taabanne malaa'igtu malaha qariisad malaha shahwad malaha damac malaha waxa weeye wuxuu Allah u abuurtay in wixii uu falo ay faraan oo kaliya iyo inay caabudaan laakiin bani aadamkii cibaadadii ilaahay ku farad yeelay ee uu abuuray wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun cibaadadu ilaahay noo abuuray waxa ka hor taagan oo ama kaba joojinaya ama ka khalkhal gelinaya ama ka caajisinaya waxyaabaha badan aynu garanayno ee nafta iyo shaytaanka iyo maxay ahayd adduunyada iyo maalka iyo waxaas ay ka mid yihiin sidaas darteed qofkii intaa oo dhan ka adkaada malaa'igta uu ka sareeyaa waxaynu markaa isweydiinaynaa haddaba walaalayaal bani aadamkii ilaahay sidaa u sharifay ee karaameeyey ee malaa'igta ka koraysiiyey qaarkood kii doonaya haddii wax allaala wuxuu abuuray mid weyn iyo mid yar midaynu arki karno midaynaan arki karayn mid dareero ah mid dhagax ah mid bad ku nool mid berri ku nool virus iyo bacteria iyo maxay ahayd atom iyo molecule mid waliba hadduu ilaahay caabudayo kii uu ilaahay sharaftaa siiyey aynu soo sheegnay haddii uu rabo sharaftiisa wuu kororsan karaa wuu ziyaadin karaa hadduu sidaa samayn waayo oo cibaadadii alla ku amray uu ka soo bixi waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hoos ugu dejinayaa oo uu maxay ahayd hoos ugu dhigayaa min fi asfali saafiliin siduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala laqad khalaqna al-insaana في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين حقيقة بني آدم وحنو أبورنا في أحسن تقويم سيدا أبورت ووانا أكسن بانو أبورنا وهو تاغي مدحيس وحال كاسرو كجر مسكحبو إلهي سي يوحي الله مدينو قرنينو كي انتا خلق وناقا إلهي وأبوري يا مسكحدا أسيي kii garan waaya ee ilaahay ku caabudi waaya radadnaahu asfala saafiliin buu ilaahay subhanahu wa ta'ala baranbarada iyo jiirka iyo ayaanu ka sii hoos marin buu ilaahay subhanahu wa ta'ala waaya cibaadooyinka aynu soo sheegnay waa sujuudi waa salaadi waa tasbiixdi waa baqahi ama maxay ahayd cabsidii alla laga cabsanayay oo cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn kamid ah waa cibaado intuba waa cibaadooyinka ilaahay inagu amray ilaahay inagu adoonsaday balse khalaa'iqa ilaahay oo dhami waxay wadaagaan cibaadada tasbiixda khalaa'iqa ilaahay oo dhami cibaadada tasbiixda way wadaagaan malaa'ig iyo sidaynu soo sheegnay mid dhagaxa mid dareero ah mid bad ku nool mid beri iyo mid samo ku nool mid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdu waxay ka mid tahay cibaadooyinka ugu waaweyn ee malaa'igta maalan ilaahay oo inoo cadaynaya ayaa wuxuu yidhi maalan
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ملائكة عرشك سدة يكو كحيرا عرشك إلهي بيكو تصبيح صدان يسبحون بحمد ربهم هدين مر لبات هدنا نرانو قرآن كسدا سؤال الله كشيء يسبحون بحمد ربهم وهو الليل وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وهذا أركيس ملائكة وكو ريكسن أما كو ريكيس عرشك إلهي وكو تصبيح سنية سبحان الله وبحمده يا وعباده آدو فضل إلهي آدو تشعليهي ميزان كيدنا آدو علوسي سيدو النبي عليه الصلاة والسلام التصبيح وحجري صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولبئري وعرب كأفضد ميزان كود علوسي هاي إلهينا آد أتشعلي بوري سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لبدا إري سبحان الله وبحمده أما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أجر كود سيدنا الشيخنا أما ميزان كود آد بؤوية رسولك الله يجري صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر قفكي إلى هذا مالنتي بقول شير سبحان الله وبحمده ذنوبتي سيرير أوردن إياني كبائر كوكوشرين كل قد وحو إلهي وقد يا سيدي علانتو جيلالك وقد دادتو درتا يا marka waa cibaado ajirkeedu aad u weyn yahay miisaankeedu aad u weyn yahay ilaahayna aad u jecel yahay way Jaabir ibn Abdullah isagana radiyallahu anhu wa ardahu waxa laga soo wariyay inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah qofkii yiraahda subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ama subhanallahi alazim wa bihamdihi markuu kelmadda yiraahdoba geed baa jannada loogu beeraa buu yiri nabigu calayhi salaatu wassalaam dhirta jannaduna waxa weeye macnihii halkaynu maanta maxay ahayd maal dadku tirsanaya iyo dollar iyo shilin dhirta jannadu waxa weeye waxa la tirsado waxa ugu fadliga badan Allah inaga yeelo kuwii cibaadur rahmaan ka qayb gala kuwii aan jiirka iyo baranbaradu uga dheeraynin cibaadada ilaahay kuwii aan geela iyo lo'da ay daba socdaan iyo ariga ay raacayaan aanay cibaado badanin Allah inaga yeelo kuwii insha Allah ta'ala ilaahay xaq ku caabuda iyo tawxiid dhab ah ee ilaahay insha Allah ta'ala darajo sarasiya Allah inaga yeelo wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh